Dhawaaqa rasaasta aad maqlaysaan waa dagaal mar kale ka qarxay degmada Luuq ee gobolka Gado. Wararka aan ka heleyno degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa sheegaya in saaka dib u sii laba qarxay dagaal labadii maalmood la soo dhaafay ka socday gudaha degmadaasi, kaasoo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ee halkaasi wada dega. Dagaalkan oo galay maalintii saddexaad oo xiriir ah ayaa haatan ka socda bartamaha magaalada oo ay isku hayaan labada dhinac, waxaana la soo wariyay in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso. Ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan aagaasi ayaa la soo wariyay in dagaalkan ay ku biireen, taasoo weji cusub u yeeshay xiisadda ka taagan halkaasi. Sidoo kale waxaa lagu guuldareystay dadaalo nabadeed oo la doonayay in xabad joojin lagu kala dhex dhigo labada dhinac, kuwaas oo ay wadaan maamulka iyo waxgaradka deegaanka. Labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana sidoo kale dagaalka barbar socda madaafiic lagu garaacayo aagaga lagu dagaalamayo. Khasaaraha dhimashada, dhaawaca iyo burburka ka dhashay dagaalkan ayaa sii kordhaya, iyadoo horey loo gubay suuqii weynaha degmada Luuq ee gobolka Gado maalinnimadii shalay ahayd, taasoo dagaalka halkaas uu ka socday. Xaaladda ayaa weli ah mid cakiran, waxayna dhinacyadu dirartu ay helayaan gurmadyo iyo ciidamo dheeraad ah, taasoo keentay in dagaalku uu sii darsado. Dagaalkan ka socda degmada Luuq ee gobolka Gado oo maalintii saddexaad oo xiriir ah ka socda degmadaasi waxa uu sababay khasaare xooggan iyo barakac dadka deegaanka. Waxaana xusid mudan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe war-saxaafadeed uu soo saaray shalay, isla markaana qaaday tilaabadii ugu horeysay ee ku aadan dagaal beeleedka haatan ka socda gudaha degmada Luuq ee gobolka Gado. Axmed Madoobe ayaana ugu horeyntii baaq nabadeed u diray beelaha ku diriraya isla markaana ku dagaalamaya gudaha degmada Luuq ee gobolka Gado. Dagaalkaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo in la gubo suuqii weynaha ee degmadaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in xilligan aan loo baahnayn dagaalka dhex maraya beelo walaalo ah, iyadoona xaaladdu markii ugu horeysay ee gobolka ahayd xaalad bariga dhexe ku jirtay. Madaxweynaha ayaana tilmaamay inay tahay waxaan loo baahnayn dagaalkan u dhaxeeya dadka walaalaha ee ku nool degmada Luuq, iyadoo dadka deegaanka ay ka soo kabanayaan saameyntii fatahaadda iyo daadadkii ku dhuftay sanadkii hore, walina ay jirto saameyntii xaaladaasi ku reebtay nolosha bulshada, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkii shalay ka soo baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Si kastaba, waxa uu dagaalkan markii hore ku bilowday laba askari oo murmay, iyadoona mid ka mid ah askarta muranka uu soo kala dhex galay oo halkaasi ku geeriyooday. Waxaana dhacdadaasi ka sii horeysay xiisad ka dhalatay muran dhul ku yaala halkaasi oo ay isku hayaan beelaha hadda maanta ku diriraya degmada Luuq ee gobolka Gado. waad ku mahadsan tahay daawade. haddii aad halkan nala soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka laag saarto, siina sheer garayso, boggan aad follow tiraahdo, saaxiibadaadan aad la wadaagto muuqaalkan. mahadsanid.